marka mawduuca maanta aan ka hadli doono waa howlgabida wadnaha. Magacaydu waa Axmed Daawud. Waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka oo Karolinska Universitetssjukhus. Waxaan 6 sano baan waxbarashada aan soo dhameeyay. Kabacdi waxaan suubiyay 2 sano oo wareejis ah oo qofka takhtarnimada markuu soo dhamaado. Haddana waxaan wadaa takhasuska oo baaritaanka wadnaha. Marka qofka ani waxaan fiirinaa qofka markuu takhtarka guud u tago oo cilada wadnaha lagu sheego annagana la soo gudbiyaa isbitaalka weyn kabacdi aan baaritaan waxaan ku suubinaa cilada oo qofka oo qabo sida kaniiniyaal ka hortag loo suubiyo. Marka cudurka aan ka hadli doono Swedishka waxaa loo aqaanaa hjärtsvikt, af Ingiriiskana heart failure. Haddaan wax yar idin weydiiyo cudurkan yaa hadda ka hor maqlay? Ma la aqaan cudurkan? 2 qof arkay yaa kale inta aqaan cudurkan. cudurkan marka qayb haddaan idin sheego hjärtsvikt la sheegaa howlgabida wadnaha wuxuu ku dhacaa looga soo qabtay 40,000 oo qof Stockholm qabo qaybta Stockholm bis la la sheego sanadkiiba waxaa lagu sheegaa 7,000 oo qof cudurkan haddaad kaniiniyaal ka hortag lagu suubinin boqolkiiba 50 waxay dhintaan 5 sano gudihiis. Marka intaas aan ku bilaabeynaa laakiin aniga qaybta waxaan jeclahay habka waxa sidoo u shaqeeyo sidaan ka bacdi information u fahantiin cudurrada meesha ka imaadaan. qaybtan waa wadnaha aad u jeediin wadnihiisa la kala fiiqay gudihiisa la fiirinaa. intana qaybtan waxay idin tusee wadnaha iyo korka dhan bini'aadanka si isku xiriirsan yihiin sida u fahantiin physiologiga iyo habka korka u shaqeeyo. dhiigga qaybta bidixda oo ka imaana korka dhan laga keenaa beerka mindhicirka kelida sanbabaha ilaa maskaxda laga keenaa wadnaha la geynaa wadnaha ka bacdi bam ahaan u shaqeeyaa dhiigiyo riixa dhiigga sanbabaha la geynaa waa la aariyeynaa ka bacdi sanbaha markay ka imaadaan wadnaha ku soo noqonayaan qaybtan guduudka ka bacdi yaa la riixa korka dhan la isgaarsiinaa wadnaha saas u shaqeeyaa qaybtaas gudihiisana saas wadnaha marka saas loo fiiriyo qaybtan waa qaybta buluuga aad u jeediin wadnaha wuxuu leeyahay albaabo waa cuduro kale dadka ku dhici kara albaabaha wadnaha hadaad maqashiin waa qaybta wadnaha oo kala qaybiso dhiigga socodsiiya albaabaha ayaa cilad ku dhici karaan murqaha waa kuwan saad u jeediin dhiigga marka saas u soo galo sanbabaha oo tagaa qaybta buluuga waa la soo aariyeynaa qaybtan camal aad u jeediin dhiiggii wuu soo noqonaa qaybta gaduudka waa albaabkana furmays inta ku riixa ka bacdi dhiigga ambowlaha lagu shubaa korka bini'aadanka inta kale inta la isgaarsiinaa saas u shaqeeyaa marka dhibka oo aniga ka hadli doono cudurka waa howlgabida wadnaha. marka haddaan idiin sheego howlgabida wadnaha waa qaybtan sidaan ugu qoray dadka waxay u aqaanaan howlgabida wadnaha oo sidoo kale loo yaqaano dheecaanka ururidda dad waxay dhahaan murqaha wadnaha oo daciifay. haddaan idiin soo gaabiyo oo socodkiisa hoos u dhacay haddaan idiin soo gaabiyo sheekada wadnaha oo fiyo waa kanaa iyo wadnaha cilada ku dhacday waa kanaa wadnaha shaqadiisa dhan la idin sheegayo waa bamb waa masoorka dad idin tusaayay dhiigga markuu soo galo wuu riixaa dhiiggiyo socodsiina oo korka bini'aadanka kale isgaarsiina waa sida dad idin tusaayay haddoo cilad dhacaan oo u saameeyo inuu wadnaha shaqadii laga raba qabani waayay oo cilad imaadaa muruqaas hadda ka soo qaba dhici karo jug ku dhacay mise jugaa gaaray waa sidoo Mustafa sheegay qofkii wadna xanuun ku dhacay xidid mise meel xinjir fadhiistay ka bacdi wadnihii aariye mise dhiig mise nafaqa oo waayay qaybtii ayaa dhimatay qaybtii markuu dhinto dib wuxuu keenaa shaqadii laga rabay boqolkii laga rabay lagu qabani kara 50 camal ku shaqeynaa mise 40 mise 30 wadnaha sidoo kale waa kana inuu qafiifo xoogii la rabay uma riixi kara dhiigga saas u qafiifay waa howlgabida dhan lagu sheegaa howlkii laga rabay oo qabani waayay wadnaha. cudurrada sababaha oo howlgabida wadnaha cudurrada oo keeno waxaa waaye oo aan ka hadalnay waa cudurka wadnaha oo aad taqaantiin wadna xanuunka iyo ciladaha xididaha iyo sidoo kaleeta dhibaatooyinka albaabaha wadnaha haddaad maqashiin waa albaabihii wadnihii waa kana la kala jeexay
qaybta waa kana albaabaha la idin sheega waa labada qol mid u dhaxeeya albaabaha sii deeyo haddaad maqashiin albaabaha wadnaha cilad ka gaareen waa kuwa waxaa dhici kara albaabahaas hadday shaqeyn waan dhiiggiin oo gadaal u noqdo mise hore u socdo qaybtii la kala bixinaya ayaa isku furmatay waxaa dhici kara dhiig karka oo sadhay iyo sokorta waa qaybta sidaan idiin sheegnay oo Dr. Maslax iyo Dr. Mahdi ay ka hadlayeen iyo cuduraha sanbabaha mawduuc gooni waayay cudurada qanjirka ama kilida infectionka ama viruska isticmaalka alcoholka ama daroogada iyo dhibaatooyin wadnaha waqtiga dhalashada haddaan wax yar aan u noqono qaybtan marka wadnaha waa kana shaqadiisu waa idin sheegnay waa bamgareyska la rabo oo inuu u bamgareeyo dhiigga oo korka dhan isgaarsiiyo haddoo wadnahan shaqadii laga rabo uu qabani waayay meeshii 100 ku shaqeynaa waxaa dhici karta 30 ama 20 waxaa dhici doono inuu dhiigga oo soconi waayay oo sidii la sheegay oo dhiigga meesha gadaal u buuxsmo waa highway amal oo baabuur shil gale oo la gadaal is haysto marka qaybtan waxaa dhici doono cudurrada markay ku dhacaan kasoo qabo wadnihi shaqada laga rabo oo qabani waayay dhiigi ayaa aruurayo qofka wuxuu dareemaa neeftuur kasoo qabo marka kilidii marka waxay dareemay inuu korka bini'aadanka inuu biyo ku aruurmay mise biyihii mise wax socdo dhiigii wadnihii sidoo xoog u shaqeynayo inuu u shaqeyni karin kilidiya signal bixinaysa information waxay leedahay kaadida iyo wixii joojiyo waayo wixii ma socdaane ayaa la socodsiinin qofka cilad waxa imaanaysa maadaama kaadini karin oo dhiigi iyo biyihii wixii korka bini'aadanka biyihii ku aruur oo biyihii soo bixi waayay systemka dhan waxa dhacayo inuu biyihii ku bato waxaas waxaa arkaysiin beerkii biyo ku badanayo sanbabihii mindhicirkii korkii dhan qofkii waa barara marka physiology-ga waa isa u fahantiin sida u ogaatiin dibka qofka oo sheeganayo howlgabada wadnaha markay ku dhacdo haddaan wax yar aan idiga sheegno isla markii waa ambulance-ka haddii aad dareento calaamado hadda waxaan kala bixinaynaa 2 calaamo calaamo waxaa jiro haddaad dareentiin inaa calaamadooyinkan isku aragtiin inaa isla marka ambulance-ka aad wici kartiin كذا وحاوي علامة أو إسلامرك الحق وليدي أمبولانس كأتتفو إن الحريتين هي علامة كلا أنت وحاجرة أو information كإنا ولا سعتين إن إسلامرك أمبولانس وباهنين إنا وعدين لكن تختارك جود أو وقت اللي يلين كرتين ويجوده سلسلة بارتان اللي بسميه قارما أمرك أمبولانس كوعيسين هدا درينتين إنه نفكو كوجو جابني هاي مركات تا marka aan sabto waqofku waa caqad ka soo qab amal jaranjaan markuu fuulay dhaqdhaqaaq markuu suubiyo oo dareemayo inuu neeftuurayo qofka markuu fadhiisto oo nasto wili neeftuurki ee ziyaado ku badan tahay oo na awoodin inuu aare soo jiito waayo ciladu waxa way biyihii sidii sheegay aw xilaa sanbabaha gaareen qofkii marka waxa dhibay aariyada qaybta laab qabto hadoo qabto qofka laab xanuun ama cadaadiska feeraha qayb kale inta waa isla marka aad wici kartiin hadda wadna xanuun isku aragtiin atadfo soo ula xiriirtiin waxa jira miyir hadda miyir beeshid mees hadda isku aragtid wadna garaac dhaqso ah oo joogta ahaan qofku markuu wuxuu dareemaa wadnihiisa aad u garaacayo hadda ma wixii isku xiran yihiin calaamado kale inta waxa jiro oo aad u baahnadeen atadfo ina isla marka la xiriirtiin laakiin dhakhtarka guud ina waqti la heli kartiin sida baaritaan oo gudihiisa ama oo loo lagu sameeyo wixii aad isku arki kartiin waa hadda daalantaha ama daciifsan tahay calaamado badan ayaa keeni karo waxaan laakiin hadda isku aragtiin 2 mise 3 waana kala weyn yihiin hadda daciifnimada isku aragtiin waa iska fiican tahay dhakhtarka guud ina la xiriirtiin sida baaritaan waxa howlgabka wadnaha way ka mid noqon kartaa laakiin cudurro badan ayaa keeni karo waxa kale inta hadda isku aragtiin adigoo meel siman ama barkin la'aan jiifsan karin ama aad u baahan tahay inaad kursi ku seexatid calaamadahaas waa calaamad kale inta oo la isku arki karo waa sidii sheegayna qofka biyihii korkiya biyo ku aruuray markoo sariirtiisa ku seexdo biyihii korka dhan isku kala bixinaysa ilaa sanbabaha shaqadii ay qaban lahaayeen ay qaban karin aaridii inay isu bedelaan qofka qufaco bilaaba iyo aarid inay dhibto marka qofku wuxuu suubinaa
jilbihii barkin inuu gadaal dhigto oo saas uu fadhiisanaa saas oo ku seexanaa marka waayo biyihii lugihii aadayaan laakiin cilad kale inta jirto waayo biyihii lugaha ayay ku aruuri doonaan haddaad dareento wareer ama isku dhaxyaaca taasna waa calaamo kaleento oo haddaad isku aragtiin oo iska fiican tahay inaad dhakhtarka aad la xiriir la yeeratiin waxaa kaleenta jaranjarada oo aad si raaxo lahayn aad ku fuuli karin horta qof jaranjaro qof raaxo ku fuuli kara ma leh laakiin waxaa muhiim ah inaad ogaatiin dhibka inuu yahay inuu jilbaha ahayn laakiin haddaad dareensantihiin ama neefta inuu dhibaa jaranjarada markaa fuurtiin oo inaad istaagaysiin aad dareensantihiin inuu wax korka feeraha idinka fuulaayo haddaad dareento inuu neefka kuugu gaaban yahay waa sheego kaleento sidoo kaleenta neeftii iyo sanbabihii haddaad ka hadlayna oo soo hoosgalaa waxaa cilad kaleento calaamo kaleento waxaa jirta haddaad bararsan tahay ku bararsan tahay lugaha cagaha ama aad dareento in kabahaaga suunkaaga ama faraantigaada ee cariiri kuugu noqdo waa sidii idin sheegayna qofku wuxuu isku arkaa faraanta dugashan ama suunkii gashan yahay miisaanka inuu isku arka ziyaad miisaan badan fuushay marka calaamadahaas waa sidii idin sheegayna korka bini'aadamkii ayaa biyihii ku aruuray marka qofka miisaan badan fuulayso qof waxa iimaan jira marmar oo ku iimaanaya waxa dhahay dhakhtarow week laba week gudihiisa 10 kiilo igu fuushay cuntadaada appetite-ka hadduu kaa xirmo waa calaamo kaleenta laakiin calaamo weyn ma ahan wax badan ayaa keeni kara appetite la'aan laakiin wixii hadda israacaan ayay cilad jirtaa habeenkii qufac badan ama qufac kuugu kordhayo haddaad isku aragtid waa calaamo yar laakiin waxay ka mid tahay qofka bini'aadamka waayo sanbabaha biyo badan markay ku bataan waxaa korka isku dayay inaad bixiso qufac inaad bilaawdid iyo xumbo afka marmar inaad dareentid marka qaybta baaritaanka waaye oo aan ka hadli doono marka qofka markuu imaado etid4 markuu waca oo qofka isku arka wadna xanuun sidoo Mustafa sheegay mise calaamo kaleento waxaa suubinaa ambulance la xiriir ambulance ku soo doonayo qofka baaritaan lagu suubinaa baaritaan mid kamid waxaa jira oo la dhahaa qalabka duuba garaaca wadnaha alaabtan yaa hadda ka hor aragtay oo fiilo lagu xirxirayo qofka laba qof arkay meesha waa la badan yahay fiilooyinkan yaa fahmay wiliis qof lagu xirxirayo qof ma fahmay fiilooyinkan isku dhijinaayo oo qofka afarta gacmaha inta fiilaha feeraha ya ekogeega waa kaasa laakiin maxaa loo saaraa qofka kasoo qabo frequency-ka laakiin kan waxa qof walba ambulance ka raacaya ayaa waxa lagu fiiriyaa wadnaha ekogeega waa baaritaanka diiwaangeliya howlaha korontada ee wadnaha ayaa lagu sheegaa sida idin sheegaa waa maayada waxay keentaa in muruqa wadnaha uu majoojismo oo dhiig wadnaha ka soo tuuro waxa waaye wadnaha maadaama muruq yahay oo albaaba badan isu furfuran tahay albaaba is xirxirayaan waxa la rabaa in la kala haga shaqada wadnaha shaqada marka waxa lagu hadagaa qaybtan waan baaray laakiin waxa qofta sida ugu fudud oo lagu sheegi karo dadka waxay dhahaan maayada korontada ku socoto wadnaha waa si oo Soomaali lagu turjumay laakiin korontadaas waxay keentaa wadnaha sidii loo rabay inay isu garaacmato soo dhiiga qaybabka qolalka uu kala wado ekogeega wuxuu fiiriyaa korontadaas korka murqaha wadnaha ma fiiriso laakiin waxay fiirisaa korontada oo kala hagto wadnaha marka waxay sheegi kartaa sidoo walaalkan sheegay wadnaha garaaca badan waxay sheegi kartaa qofka wadna xanuun inuu ku dhacay waxay calaamadeyn kartaa qofka qaybta wadnaha dhinaca laga haysto dhakhtarkana waxay tusee ku hagee cilada qofka haysto marka badi hadda isbitaalka aadin waa boqolkiiba waa 90 waa badan tahay ina ekogeega lagu sursuro si u fahantiin maxaa waaye fiilooyinkan oo naga soo taataagan qaybtana aan la qabtaa qofka sida uu jidi waa kana waraaqa soo baxaysa for centralka hadda aadin saasa loogu dhadhijinaa qayb kaleento oo aan la qabto waxa waa qofka ka soo qabo qofka imaanayo wadna xanuun neeftuur holgabka wadnaha dhibo sheega ay sanbabaha dhakhtarka ma fahmaayo waxa dhici karta in isbitaalka la geeyo oo baaritaan nooc kale lagu soo bixiyo hadda odayga wuxuu saaran yahay albahalka almiitaga lagu socdo laakiin dad waxa la saari karaa bushkuleetiga dadka oo bushkuleetiga wadi karo bushkuleetiga la saara hadda bushkuleetiga wadi karin
bahalkaas lagu socodsiinaa bahalkan kabacdi afka wax loogu suraa marka qalabkan magaciisa waan soo raadiyay waxaa la dhahaa baaritaanka geesitada oo wadnaha iyo neeftuurka waa geegsiga qofka markuu sheegto voice centralka dhakhtarka guud u tagay waxa la dhakhtar oo markaan dhaqdhaqaaq suubiyo feeraha ayaa laga qabtaa dhakhtarka markuu leeyahay asmiya wuxuu ku leeyahay isbitaalkan ku diraa dhakhtarka isbitaalka ana ugu imaanaysiin bashiintaasaan idin qarrabeena bahalka ecogeega idin sheegay afka bushkuleeti hadii la saara marka waxa la leeyahay bushkuleetigan wad ama soco waxa la isku dayaa dhaqdhaqaaqaas dhididkaasna laga keeno sida loo ogaado wadnaha ma ku xanuuna mise neeftuurka neefta waaye sida loo kala bixiyo qofku wuxuu sheegay in la hubsado iyo wadnaha isbedel in laga arko hadaa loo baahan yahay wadnaha in la fiiriyo qofka waxa la saari karaa bahalka echo-ga la yiraahdo waa baaritaanka oo isticmaala mawduuca dhawaaqa sida loo muujiyo sida wadnaha u shaqeynayo qaybtan echo-ga waaye yaa qof ma lagu fiiriyo wadnaha hal qof lagu fiiriyo yaa kale inta arkay jabaq waa meel aan qoro fiirna shanqar waa cod waaye kan waxa waa echo-ga mashiinka naftiisa waaye baaritaankan ma xanuun ma lahan waa bahal toosh camal bahal kor feeraasas lagaga saaraa waxaa la fiirinaa wadnaha garaaciisa sidoo uu eg yahay dib cilad inuu ka jiro wadnaha albaabaha wadnaha ka soo qabo hadoo qof oo wadnihiya la fiirinaa laga arkaa marmar waxaa dhici karto inaa kan qofka binaad qofka ku filneen waxaa la suubinaa qayb nooc kaleento oo transesophageal la dhahaa oo waxa waaye qaybtii echo-ga haddaad idin sheegayna waaye laakiin tubo ayaa afka laga gelinaya gastroscopiga camal maaha gastroscopiga yaa maqlay caloosha la bigiliyo qaybtan caloosha u egtaa laakiin caloosha ma aha wadnaha la fiiriyaa tubada marka saas qofka loo geliyo ayaa wadnaha si fiican loogu fiirinaa cilada wadnaha loogu haysto marka qaybtii hore EKG-da idin sheegay qofku waxay fiirinaa korontada wadnaha sida uu shaqeeyo qaybtan laakiin waxa la fiirinaa wadnaha naftiisa sida uu shaqeynayo marka waxa la fiirinaa qofka 100% wadnaha meesha laga rabay haduu ku shaqeynaa 20% marka sidii loo fiirinaa marka waxa la arkaa wadnihii inuu garaacay laga rabo uu garaacaynin hadaa howlgabada wadnaha idin lagu sheego waan sidii idin sheegay qofkii 100% qof hadaa kaniini mise dhakhtarka u tagin oo la daba galin 100% ayaa dhimanayso 5 sano gudihiisa waayo waxay muhiim u tahay qofka daawooyinka loo soo qoray inuu qaato subax kasta isla waqti in la ismiisaamo oo sidii korkii ay sheegaan bihi ku aruureys in la socdo oo miisaankiina aad ilku haysiin qofka inuu cusbada iyo cuntooyinka cabitaanada iyo sokorta iyo cusbada badan waa ogtiin qofka cusbada badan iyo cunto basbaas wax doocna biyo u baahan yahay biyo markuu cabo miisaankii ku sii daray marka in laga warqaba fiican maalin kasta in jimicsi la sameeyo sida loo baahnaa laakiin si xad daaf loo baahno dhaqdhaqaaq yar bas leh cagahaada kor inaad saartid sidaad u yareyso bararka lugaha muhiim waa sidii sheegaynay biyaha korka dhan isku balaarinay waa ina balance lagu haayo marka hada aragtiin lugihiina oo bararaayo labada dhinac oo saas marka u riixdiin waxaa muhiim inaad la socotiin inay calaamadaha howlgabka ay ka mid noqon karto iscaatay haddii aad si xad dhaaf ah aad u cayilan tahay taas ayaa muhiim inaad la iscaateeyo qaybtan hadhow baaritaanka waxaan sameynaa miisaanka inaad iska fiiriyo dhirirka la fiiriyo qofka la qiyaaso intuu ridaayo inaad la joojiyo sigaarka iyo jaadka iyo waxaas iyo dhakhtarka hadoo talaal idin soo qoro oo sanbabaha camal inaad la qaato xitaa marka maanta wax badan aan idiga nixinay laakiin waxaa muhiim ah inaad saddex wax ku fikirtiin sigaarka inaad iska joojiyo cuntada inaad cunto caafimaad in loo cuno iyo exercise-ka dhaqdhaqaaqina la suubiyo waa muhiim inaad ugu celino 30 daqiiqo maalintiiba inaad dhaqdhaqaaq samaysiin muhiim waaye qofku waxa la rabaa magta inaad la ordo lama rabo laakiin waxa la rabaa socod yar oo dhexdhexaad ah taas ayaa muhiim ah marka waxaana muhiim inaad la socotiin cuduradan marka maanta wadna xanuun iyo howlgabada wadnaha iga sheekeynay laakiin waxaa muhiim inaad la socotiin cuduradan Soomaali xitaa waa jiraan laakiin si fiican looma aqaano
marka lama ogo cilada inuu yahay cuduradan kamid badi sokor iyo inay dhiikar inuu yahay waayo ciladaha wax la arkaa cudurada kale inta loo jeedo dadka dilaayo marka waxa muhiim ah sida Mustafa sheegay waxaan dhahay markasta cudurada aan la socotiin badi ayaga dhama ahaan badi 80% waxa ka dambeeyni karo cudurada sokorta iyo dhiikarka la yiraahdo waana forjan iska dhahnaa aabi hooyo sokor iyo dhiikar ayaa cuduradan wadnaha howlgabka wadnaha iyo dhiikarka iyo ayaa dhiikar iyo sokor ayaa u aabi hooyo awooy ayaa u ya ijeegar ya waa dhaqdhaqaaq la'aan cadin leh marka waxa muhiim ah inaad ogaatay dhaqdhaqaaqa iyo cadinta inuu muhiim yahay inaad dhaqdhaqaaqa la badiyo cadinta inaad la gooyo insha Allah intaasan ku soo koobayo maanta assalaamu calaykum